kulanti wanaagsan daawadayaal waa suuragal maalmahan haddii aad maqashid dalka Turkiga inay kugu soo dhacdo dhalinyaro doonaya inay tahriibaan kadib markii Turkigu uu dhawaan sheegay inuu furay xadka uu la wadaago dalalka midowga Yurub balse taasi beddelkeeda waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Turkiga ka bilaabay hal abuur ganacsi iyagoo buuxinaya baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga iyo kuwa kale ee u imaanaya waxbarashada caafimaadka iyo waliba dalxiiska waxaa magaalada Ankara lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xarunta IFIA oo qaban doonta adeegyada kala duwan ee bulshada waxaa ka soo qayb galay oo lagu martiqaaday mas'uuliyiin ka socday safaaradda ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara waxgarad wariyayaal aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara maamulaha shirkadda IFIA Cabdullaahi Muuse Cabdi ayaa ugu horeyn inala wadaagaya sababaha ku dhaliyay inay furaan shirkadda IFIA shirkaddan shaqooyin kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed u qaban doonta shirkadda waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddankan Turkiga 3 sano ugu dambeysay inay joogay arkayna cilladaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed waddankan Turkiga ku dhaqan haysta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankeena Soomaaliya cilladaha dadkaas aan aragnay hadda aan ka ixtiraamay shirkaddan IFIA Public Service waxaa kamid ah in dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankii hooyo u baahan inay waddankan waxbarasho doontaan ama caafimaad soo doontaan inaysan haysanin xiriir toos ah iyo meel ay la xiriiraan oo rasmi ah meeshaas oo ah shirkad rasmi ah oo wax wanaagsan la qaban karta iyo hadafyada ay higsanayaan shirkaddan waxay ka jawaabaysaa baahiyaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed haysta taasoo ay ugu horeyso inay u samayso iib guri kira guri soo saarista waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan soo saarista caafimaadka fiisooyinka caafimaadka shirkadda waxay xoogga saaraysaa insha Allah tacaala bilaha soo socda ee dhow maadaama ay tahay waqtiga ay furmaysan dugsiyadka ardada inay waddankan keento arday Soomaaliyeed imtixaankan looga soo qaado waddankii hooyo Soomaaliya shirkadda waxay xoogga saari doontaa sidoo kale in ay samayso fiisooyinka caafimaadka inay u fududeyso dadka xanuunsan iyo doonaya waddanka inay caafimaad u yimaadaan taasoo ah in lagala shaqeeyo isbitaallo tayadooda aad u sarreyso loona qabto adeegyada kala duwan sida inay helaan turjubaano nadiif ah inay helaan deegaan nadiif ah inay helaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inay helaan deganaanshaha waddankan Turkiga waxaan mar kale idin leeyahay kusoo dhawaada shirkaddeena cusub sida slogan-keena ama ka muuqataa ku dhigeena wajigaaga ayaan farxadda ku soo celi doonaa kusoo dhawo markaleed munaasabadda waxaa hadalla bogaadin talooyin iyo dhiirigelin isugu jira ka jeediyey oo qaybsamaha ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya Maxamed Aadan Daahir safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee dalka Indonesia Ahmed Xiis gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee Ankara saxafiyiin lagu marti qaaday aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay Cabdullaahi Muuse Cabdi jaamacadda aniga macallin ka ahaa ardayna ka ahaa ayuu wuxuu ka ahaa asigana arday qof aad u dadaal badan inkastoo xeer ilaaliye uu ahaa oo hadda ganacsi gale haddana waa shakhsi aad u daacad ah karti badan leh dulqaad iyo hal abuurne macnaha ku sifoo marka waxaan rajeynayaa shirkadda maanta bilaabatay aragtida ugu weyn qofka ay ka imaatay inuu yahay aanu ku kalsoonahay in meel sare ay gaari doonto runtii shirkadaha ganacsi ee laga furayo magaaladan Ankara maalmahan aad bay u soo badanayaan anagana haddii aan ardayda waddanka wax ka barato aad bay noo farxad gelinaysaa sababtoo adeegyo badan oo markii hore aan heli jirin ayaa hadda helaynaa oo noogula keenay magaaladii aan wax ka barnaynay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ee halkan yimid ee ganacsiyada kala duwan nooga furay waxaan rabaa anigu ku hadlayo afka ardayda inaan u mahad celiyo waagii hore magaaladan waxa joogi jiray waxay ahayn kaliya ardayda 2012 xiliyadaas bay ardayda yimaadeen bulsho kale oo Soomaaliyeed oo halkan ku noolad ma jirin dadka Turkidu markay arkaan qof madow ah Soomaali ah way la yaabi jireen marka maanta waxaan rajeynayaa in bulshada aad u soo bateen kumanaan ay ku nool yihiin magaaladan Ankara iyo magaalooyinka kale ee waddankan Turkiga waxaan rajeynayaa marka waxtarkeena bulshada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa waa dad ku fiican hal abuurka ganacsiga meesha ay tagaan durbaba ka soo muuqdo bulshada kale dalkan bulshooyin badan oo ku nool kaliya ma aan Soomaalida dadka ku nool laakiin Soomaalidu waxay la soo baxeen hal abuurkii ganacsi ee nagula xama jiray runtii waa waxa loogu farxo waana bogaadinaynaa ka warbaahin ahaan IFIA waxaan u haynaa abaal badan waana amaanaynaa
waxaan kula yara kaftamayaa walaalo iyo saaxiibo badan oo ambassador cabdifataax iyo cabdirashiid cabaasi ay ka mid yihiin oo waqooyi ka yimi oo damac ka haya ganacsiga jooga nimankaan albaabada u fursoona dhowey xoogaa dowladnimadiina lagu yara duusiyey baanu tirsanaynaa nimankaa ganacsiga ku duusiyin aad baa umahadsantii marka farxada ii tahay inuu cabdulaahi ganacsi intaan la-eg uu furtay waan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan rabaa arrin muhiima inaan xuso waayadii hore waxaa dhici jirtay in dhallinyaradu ay ku shaqeeyaan qaab informal ah oo aan xafiis jirin oo qofku u dhaho aniga ah xafiiskii guuraayey fiisooyinka anigaa soo saaro caafimaadka anigaa dadka u sameeyo guryaha anigaa kireeyey guryaha anigaa gado dad badanaa marka arrintaas ceeb badan kala kulmay oo runtii ilaa hadda xataa aan magaalada mari karin sumcaddiina ka dilay dhallinyarada Soomaaliyeed marka maanta ifiye iyo tiimkiisa xafiiska quruxda badnaa ee halkaan aan ka daawanaynay ayaa loogu soo hagaagi doonaa haddii ay ummadda wax fiican u qabtaanne hadda waa loo imaan doonaa haddii kuwii hore ay raacaanne waa laga carari doonaa laakiin waxaan ku kalsoonahay Cabdalle intaan ka aqaano inuu nin nadiif yahay insha Allah ta'ala uu bulshada wax u tari doono waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada soo abaabushay xafladan furitaanka shirkadda Ifie oo ka shaqeynaysa dhammaan serviceyada guud ee baahida u qabaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara iyo kuwa ka imaanaya dalka waxaan leeyahay fakarka noocan ah inuu ku soo bato dalka Turkiga aad iyo aad u bogaadinaynaa ganacsato badan baa jirta oo dalka Turkiga ku leh ganacsiyo noocan oo kala iyo kuwa ka duwanba rugta ganacsatada Soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaceeda waxaan leeyahay waan garab taaganahay waxayna u taagantahay loona abuuray rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara ilaalinta xuquuqda iyo waajibaadka ganacsadaha Soomaaliyeed ee ku nool wadada magaalada Ankara ee dalka Turkiga runtii waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijyada ugu fiican inaan ka qayb galo barnaamij ka mid waxa waaye meel ay dhalinyaro intay hal abuur samayso ay wax abuurto ay markay abuuraysan ay u fakarto inay xal raadiso runtii ganacsiga dadka guulaha ka gaaray dhan markaa fiirisid kulligood markay ganacsi abuurayaan waxay u abuureen inay solution xal ay ummadda u keenaan hadda ninka ubar abuuray waxaa la sheegaa markuu abuurayay intaasoo abuurin ka hor iyagii asxaab kale isla socdaa meel ay hotel bay taagnaayeenoo cabbaar bay waxay sugayeen taksi ay raacaan markay waayeen oo 500 mitir socdeen taksiyadii baa taagan marka waxay ku fakareen sidee baa xal loo helaa dadka iyo macaamiisha iyo taksiyada isku helaan halkaas ayaa xag soo dhaxbaxay ubarka haddaa fiirisa Facebook ninka abuuray markuu abuuray wuxuu abuuray ardaydii jaamacadda Harvard dhiganaysay si ay u wada xiriiraan oo iskula socdaan oo casharada iyo duruusta is weydiiyaan ma xal ah la siri team bay isugu yimaadeen Facebook baa ka soo dhaxay aragtan hadda bangiyada kambaniyada ugu khatarsan adduunka ka mid yahay marka waxaan ka wadaa every successful company ama ganacsi walba wax noqdaa wuxuu wax ku noqdaa inuu marka hore la sameeyo loo sameeyo maxaa xal u ah bulshada oo sabab xal u raadiya aan loo sameeynin xagee baa lacag badan ku jirta runtii dhaqamada ugu badan oo hadda Soomaalida business-keena haystay ka mid tahay meesha lacag ku jirta in baa wuxuu furay hadaba kaayar oo laba caana soo dhiganay dadka dhinaca ka daba dhiganay laba caana laga daba dhiganay ninka halka xoogaysa loo deyn maayo marka in maanta ay barnaamijkan dhalinyarada hadda ay sameysay oo Cabdullaahi madaxda u yahay oo ah hal abuur in xal loogu raadiyo ardaydii dhalinyaradii dadkii musaafiriinta ahaa dadka caafimaadka u imaanaya sida xal loogu heli lahaa loo sameeyo marka halkaas markaas qofku wuxuu uga soo dhaxbaxaysaa guushiisa iyo mataqaana wax qabadkiisa waa hambalyeynaya waa bogaadinaya waana ku faraxsanahay waxaan salaamaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan shirkadda Ifia qabata howlaha guud dhammaantiin waa idin salaamaa salaanta salaamkaadi ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan safaaradda Soomaalida ee magaalada Ankara waxaan soo dhaweynaynaa shirkaddan cusub ugubka ah oo ku soo biirtay shirkadkii hore ugu jiray magaalada Ankara waxaa ilaahay mahadiis ah 2018 inaysan jirin hal xafiis oo Soomaali ay leedahay bilowgii 2018 inuusan jirin maantana ay magaalada Ankara ku yaalin ilaa 50 iyo dhowr shirkadood sida uu noo sheegay gudoomiye ku-xigeenka bishii 8 2019
meel halkan u dhow waxaa lagu doortay rugta ganacsiga Soomaaliyeed magaalada Ankara markaan bilaabayna hawsheedii dadku waxayna lahaayeen war magaalada Ankara ganacsato ma joogtay ka daaya iyo wax laga ganacsaday iyo dad ganacsato ma joogaan laakiin maanta waxaa jiro rug ganacsi oo ka shaqeysa arrimaha ganacsiga waxay u taagan tahay garab istaaga iyo taageeridda ganacsatada Soomaaliyeed anaga haddaana safaaradda Soomaaliyeed waliba xafiiska ganacsiga insha Allah waa taageereynaa markastana waxaan dhinac taaganahay ganacsatada Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku cusub sida maxay dhalinyarada ay u daneynayaan inay ganacsi u sameeyaan dhalinyaro badan oo wadanka Turkiga wax ku baratay oo inta xafiisyo ka furatay oo si sax ummadda ugu shaqeysa jirto in badan waxaa jirta si qaldan dadku ugu shaqeeyo laakiin Ilaahay ka cabsadaano adoo ummadda si saxan ugu shaqeyn kara waxa ka heli kartaa waxa doonayso hanti aad heli kartaa marka waxaan leenahay si sax ummadda loogu shaqeeyo Cabdullaahi muddo dheer aqaana oo asagoo maxay inta waxbarasho u yimid ilaa hadeertaan aqaana waxa uu ku shaqeynaayo ummadda dadka u shaqeeyo oo wanaag ugu shaqeeyo kamid ah dhalinyarada wadanka joogto ka shaqeysto ku jiray haddana maanta maadaama uu shirkad weyn samaystay waa bogaadinaya xafiiska quruxda badan inuu dadka ugu adeego oo noqdo tusaale u noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed oo sidoo kale u shaqeyso tusaale u noqdo bulshada Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaysay dalka Turkiga waxayna xarunta IFIA qayb ka noqon doontaa goobaha uu istaagay inay qabtiraan baahiyaha shacabka warbixinta waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush tan iyo kulanti dambe nabadgelyo